السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان bulshooyinka Soomaaliyeed ee nagu xiran soo dhawaada muuqaalka ka horeeyay ereyadan noogu ekaa waxaan rabnaa hadan insha Allah inaan muuqaalka xiga isla meesha ka sii bilaawno sidee uusan muuqaalada nooga kala go'inin wadadan hadda aan ku socono waa wada taqaanaa waxay dhex martaa Xamarweyne wadooyinkan hadda xirxiran oo dhan moolasha Xamarweyne tagaan taas macallimiin ku tihiin waa wada qiyaasaynaa inkastoo aan jeclaan lahaa Xamarweyne in laga dhigo meesha ugu quruxda badan wadadii moolka toos u galeysay waaye ereyadan waxaa la dhahaa X Naayo hadda waxaa ku taala xarunta ugu weyn ee Beko waxaa la iska rabo marka wax weeyaan muuqaalkan isla muuqaalada hore oo su'aalaha la idinku weydiinayay buu ka mid yahay inaad noo soo sheegtaan ereyadan magacyada loo yaqaanay xilliyada hore anaga hadeertaan magacyada aan maqalnay anigu shaki badan baa iiga jira inay magacyo asal yihiin inay magacyo dambe yihiin dadka rabna inay shaki bixiyaan waa adinka hadda waxaan u dhownahay beerta Banaadir ereyadan hooyooyinka la dhahaa waayiga loogu bixiyay hooyooyinka inaad noo soo sheegtaan ereyadan oo dhan macluumada iyo xogta aad ka haysaan oo xilliyadii hore inaad nala wadaagtaan sidoo kale arintii nadaafada iyo bilicda magaalada Muqdisho maasha Allah tabaarakallah meeshan wadooyinkeedu way yaryar yihiin laakiin bilicda ma xumo inkastoo guryaha wadooyinka saaran inta badan guryo dowladeed ay u badan yihiin oo aynan dhisnayn aysan dayactirnayn dan waxaa isleeyahay haddii dhul shacab u ahaan lahaa waxaa laga dhisi lahaa qasriyo waaweyn laana magaalada meesha ugu qadiimisan waa Xamarweyne waa meesha ugu qadiimisan waana meesha haddii la dhisi lahaa magaalada Muqdisho ugu shidnaan lahayd cilada jirta laakiin guryaheeda dhaxal waxa weeyaan abka ab ah macnaha waxaa laga yaabaa dadka hadda joogo inay ka dhaxleen awoowayaashood marka farci wuu badanayaa mar walba farci wuu sii badanaa dhaxalka wuu sii adkaanaa in la dhaxal koobo way sii adkaanaysaa saa daraadeed magaalo qadiimiya oo waxa weeyaan intaasoo boqoloo sano dhisan guryaheeda qaar xitaa iska dumaan hadda ka hor xitaa sanadada ay soo dhaafeenay family inta ku dumeen lagu dhaawacmo lagu dhintay waxaas keenayana waxay tahay dhaxalka la isku fiirinaya qolo walba hal qolo waxay iska degan tahay wallahi hadaa gudaha gashid aad u yaabaysa warkayuuna la tegin oo shaqadeena halmaamin hadda waxaa taagana isku islaamigan midna horteena meeshaan u socono kan aadana magacuu leeyahay kan gadaasheena jiro magacuu leeyahay kan horteena ahna magacuu leeyahay dhammaan laamiyadaas magacyadooda inaad soo sheegtaan degmooyin hadday ku kala harayaan inaad tirahdaan 2 degmo ku kala harta 3 degmo ku kala harta degmo hebel iyo degmo hebel xogtaas inaan soo siisaan rabnaa wax badan aniga waxa idin sheegay laakiin hadda muuqaaladeedoo dhan waxaan ka dhigay inay adinkana la wadaagtaan macluumada iyo warbixinada meelaha aan soo marayno aniga waxaan idin qaabilsanahay inaan si waafi wax idinkugu soo duubo oo qofka xitaa dalka ka maqan uu wax ku fahmi karo dadka aan jawaabaha ka rabnana waa qof walbo ee garanaya ama Muqdisho joog ama gobolada joog ama dalka ka maqnaaw ama Afrika joog anaga muhiimadeena waxay tahay qof wadanka taaka ku yaqaano inuu nooga jawaabo su'aalaha aan weydiinayno dhan inaan nooga jawaabaan jawaabtana ay noqoto jawaab la fahmi karo qoraalka ha dhibsanin muuqaalka waxaan ka leenahay mustaqbal fog macnaha muuqaalkan maanta aan kula soo wadaagayo aniga mustaqbal fog aan ka leeyahay oo ah taariikh rasmi inaan dalka ka reebo hadda waxaan maraynaa degada Muqdisho balse taariikhda rasmiga ah aan ka rabno waxa naga caawin karo waa adinka maadaama anaga magacyada hadda aan maqlayno dhan magacyo dambe ay u badan yihiin magacyadii hore inaa nala wadaagtaan sidoo kale nala wadaagtaan degmooyinka siday kala ahaayeen degmooyinka soo kordhay adinka waa ogtihiin oo googlaha ka ogaan kartaan anigan waan idin sheegaa degmo kasta markaa soo gala degmo hebel aa dhaxmara waa idin dhahaa wadadan degmo hebel ay dhaxmartaa waxa aan rabo laakiin waa faahfaahintaas waa muhiim jiddan waana soo qaadanaya insha Allah
waxaan kusoo faahfaahin doonaa muuqaalada. hadda muuqaalkan oo kaleeta aa duubay su-aala idinku weydiiyey jawaabaha ay soo siisaan isla asagiyaan soo diyaarin doonaa anigoo sida aa igu sharaxdeen ama aa wax u kala dhigdhigteen u kala sheegsheegayay wixii. laakiin haddii kommentiyada ay noqdaan ha yaacdo waxay noqonay inaan sugno ilaa laga helo dad khubaro ah oo ka jawaabo su-aalaheenu dhan. hadda meeshaan oo kaleeta dalsanaa ku qoran. anaga marka magacyadaana isaga dhawaaqnaa dalsan. mooto markaad heshiinaysa waxaa leedahay dalsan iyo caladuul intuu ku keenaysaa. magacyada marka asalka ahaayo horaa rabnaa inay dib u laabano, hidii dhaqankeena hore aan ku laabano. markaa buundadan maleysid maasha allah aaday u qurux badan tahay. magaceeda lagaa rabaa buundadan degmada ay tahay, laamigan oo kaleeto inta degmo uu kala qaybiyo. waxaasoo dhan waxaa idinka rabnaa inaad jawaab waafiya naga soo siisaan insha allah. anigana waxaa igu ogtihiin muuqaal nadiif ah oo si fiican idinkana aa u fahmi kartaan. halkan oo kaleeto degmaa ku taalo meesha hadda aa mareyni, degmadaas magaceedana waa la idinka rabaa. wadada toos ay u gashane waa la idinka rabaa. koley wadada toos u gasho hadaa aragtaan waaba taqaanaan, haddii inaan arkin waa aqoon kartaan. laakiin muhiimada anaga waxaa saareyna waxay tahay iskoosyada aan soo marno o dhan degmooyinkay kaleyihiin iyo jidadka hadda xamarweyne. almuhim wadooyinka xamarweyne hadda kasoo kala tagnay magacyada loo wada yaqaanayna inaa nala soo wadaagtaan. maalin jimcahay ahayd muuqaalkan markaa sameyneynay, waxayna ahayd xili duhur ah. laakiin alxamdulilah videoga sida aan uga cabsanayo muusan noqonin. waxaa is oranaya ama videoga si kala noqda oo si waafiya loo arki waayaa. dabcan si waafiya waa aragtaan. anagana xoogaa xawaara ku soconay, waxaanu ordeynay jimcada inaysana dhaafinin maadaama wiilal ay nala socdeen walaalaheen ah. jimcadana ay waajib ku tahay inay masaajidada xaadiraan. okay, iskoyskan waa wada taqaanaan, iskooyska dabka waaye. iskooyska dabka okay, meeqa degmaa soo gasho? 4 jiho wadooyina uga yimaado. 4 jiho wadooyinka uga yimaado meeqa degmooyinka kala imaadaan. inta degmooyinka kala imaadaan nala soo wadaag. iskooysyada hore aa usoo dhaafnay, wadooyinka hore usoo dhaafnay, dhammaan noo soo qora insha allah. anigana muuqaalka xigo waan ku faahfaahinaynaa. gacmo wada jira wax ku gooyaan, markaas waxaa noqon doonaa insha allah ul iyo diirkeed. la-ana waan isla shaqeynay, adinkana waa shaqeyseen, anigana waa shaqeeyey. muuqaalka xiga intaa la ku kulmeyno nabad iyo caafimaad iyo kheyr iyo barwaaqa idiin rajeynayaa. nolosha idiin wacnaato, dhammaantiin waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.